tan iyo intii ay xukuumadda Soomaaliland ka bilowday qorsheynta master plan-ka magaala ganacsiyeedka degmada Togwajaale ee ku taala xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa khilaafyo ba'ani soo dhaxgaleen maamulka dawladda hoose ee degmada Togwajaale iyo guddidii ku shaqada lahayd qorshaha master plan-ka degmadani Togwajaale ee uu soo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana xukuumadda Soomaaliland ay u soo dirtay guddi si ay u soo eegaan goobahani la isku qabsaday ee wadooyinka master plan-ku marayo kaasi oo ay guddidii isku raaceen in la raaco qaabka uu master plan-ka loo qorsheeyay magaaladu u yaalo arintani oo laf dhungashay ku noqotay maamulka degmada Togwajaale balse waxa ay talo faraha ka haaday kadib markii la bedelay barasaabkii gobolka Gabiley Maxamuud Cali Saleebaan Rama oo ay heshiiyeen wasaaradii hawlaha guud iyo guryeynta iyo maamulkii degmada Togwajaale ee uu hore uga dhaxeeyay khilaafka ba'ani isla markaasina mar kaliya la bedelay qorshihii hore ee saxda ahaa ee uu socday master plan-ka magaaladu kaasi oo isagu noqday qorshe cusub oo la leexleexiyay qaar ka mid ah wadooyinkii halbowlaha u ahaa magaala ganacsiyeedka degmadaasi Togwajaale oo ay shacabka magaaladu ka biyadiideen waxa la yiraahdaa aadan Mustafa aadan waxaan ku noolay magaalada Togwajaale waxa magaalada ka dhacay cadaalad darro aad iyo aad u tayo badan dulmi wada injineerkii uu dhigay oo toobalanka la mariyay oo si sax ah si ka dhow dhaxmaraysa oo qofkay martay ee laga heshiiyay ayaa maantana dib loogu soo celiyay in loo raro oo ka xiga oo magaalada aan dadka deegaanka magaalada aan ahayn lagu raro halkaas ay ka muuqato dulmi aad iyo aad u weyn shalay laga raray iyo maantana lagu raraya wadada gurguraysa anaga waxa looga jeedo ma garanayna hadii meesha wadada la dhigay laga bedelo magaalada gabigeegaba waa la bedelaya asaloo sida meesha iskala maxaan ku leeyahay toban inta abdee balagnoyd buu lagu halkaas waxa weey waa dhul maxaan ku leeyahay temporary ana cid ilaahay wadan guule annaga ana xukun abdee balagma xildhibaan kala baarlamaanka ka shaqeeyay bisoo xildhibaan u shaqeeyay xaashi siciid dhamacninka la yiraahdo ana uu iibsaday ninka ina xiirana la yiraahdo ana uu iibsaday saddexdoodaba dawladda hoose u sharciyeysay mid kastaba dhinacan kale wada ugu qortay ma naga waalan misaacadan baa laga heesayaa dawladda waxaanu leenahay madaxweynaha sharafta leh ee qiimeeya qaayaha leenu jecel lahay waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha waxaanu leenahay meesha intaan la isku dilin darag dhabi shaxanaya islaanta u boodboodayo wasiiriyo iyo muxuu ahaa xildhibaaniyo leh intaan meesha la isku dilin soo kala gaadhay haddaba mar uu telefishinka caalamiga Star TV oo khadka telefoonka ku wareystay injineerka guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ayaa waxa uu kaga jawaabay su'aashaas weydiiyo halkaasay martay waa timaadeen oo way isbedeshay hadda cadad galayso wasiirkayga oo marsiiyo on maraya ku soo wada xooriyo qorshihii lagu sameeyay master plan-ka degmada Togwajaale ayaa mar kaliya isku bedelay inuu noqdo wadooyin lagu sito tunka isla markaasina lagu tilmaansado in loo fulinayo oo kaliya miskiin baa miska la fuulo leh